haddii ilaahay awlaadku siiyey ilaahay uga baq tarbiyadooda iyo tacliintooda kula didaan waajib baa kaa saaran haddaad dayacdidna badbaadi maysid waddan gaalana ha iska geyn mujarab weeye la og yahay 10 qoys oo muslimiin ah oo gaalo waddankood degan oo 10 kuwa ku sheekaysanayaan ilmaheeni kulli waa nolol nabad qabaan lama helaayo 5 qoys baan la helahay hal qoys in la helo oo ilmihiisu 5 ay gaarayaan qaangaara ay yihiin 5tuna ay toosan yihiin boqolkii hal iyo laba ma dhamo haddii le macruuf weeye waddanka waxaad ka helaysaa muslimiintu ay joogaan ama ha ahaada kan ama mid kale ha ahaada waddamada muslimiinta waxaad ka helaysaa boqolaal qoys kumanaan qoys oo ilmahoodu alxamdulilah salaada wada tukanayaan daroogo iyo qurun aynan lahayn wanaag ay leeyihiin baad ka helaysaa ilmihii yaryarka ahaa oo waajibka koowaad kaa saarnaa haddaad u didaashadoo tidhaahdo didaalkooda waxa weeyaan inay baasaboorra qaataan oo waddan gaalo la geeyo halkaa lagu barbaariyo oo lagu koriyo oo hadhowta gaalo ay raacaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda ugu saara waa dayacda ilaahayna ogamaada baqin carruurtaa waxaad la raadinaysa inay baariyaalku u noqdaan waxaad la raadinaysa inay dalkooda iyo diintooda iyo inta waalidkoodba anfacaan adiga ayaana haadaan ku riday markaasaa ilaahay baarinimadoodii iyo wanaaggii aad ka heli lahay ilaahay haadaan kaaga rida adiga dad ayaa soo celiya oo hadda ku hawlan siday ku soo celin lahaayeen kuwana waxay soo laabteen ayagoo fara bannaan halna aan wadin oo haddayba waxay raadinayaan inay guursadaan oo reero cusubba abuuraan bay soo laabteen kuwana hal iyo laba ayay la soo carareen oo ay gacanta ku hayaan intii kale waa ka soo tageen khudbo horoo aan halkan ka akhriyey tarbiyada carruurta aan oga hadlahayey rag baa go'aan ku gaaray inay soo celiyaan reerahoodii soona celiyey go'aankaas qaatay intay dhegaysteen kuna guulaystay inay soo celiyaan kana qancay inay dibdaba u celiyaan wax wakhtigiisu kaaga lumi xaggay nolol ku haystaan xaggay ku fiican tahay caawa haddaa halkan ku dhimatid ayaguna xagga joogaan gaalku wuxuu u sheegayana ay aqaataan badbaadi maysid wallaadan badbaadahay adaa geeyey adaa u dooray adaa dejiyey adaa uga soo tegey ilmihii baa xagga jooga anaa halkaan jooga ma ku anfacayso xoogaa yaroo luflufiyo hadday kaa soo gasho man taraka shay'an lilaah cawadahu allah shay ilaahay dartii qofkii oga tagaa ilaahay beddel ka fiican buu siiyaa tawakkal calaa rabbik rabbigaa tala saaro go'aan gaar soo jaf waxbaa ku reebi waa la ogaaday wixii nala daldalahayey oo nala aruurinahayey oo qaxootiyo naloo samaynahayey oo guryo la dejinahayey oo baasaboorro la siinahayey dan baa nala ka lahaa dantii nala ka lahaana haddaan ogaani waagaa nugu beriyey haabhaabashadu waa egta haatan dabadeed in la haabhaabto way kuu furan tahay ka haabhaabo ilaahayna oga toobadkan wixii aa samaysay ciyaalkaas wax walba iskuul baa loo diraa mana ka celin karti kuwa u dhigaya iskuulka waa gaalo ayagaa u dhigahaya habeen iyo maalin ku shubaya waalid inay wax ka dhagaystaan wakhti uma hayaan galab bay soo dhacayaan maqribkii waana daallan yihiin wixii macallinku u sheegeen bay qaadanayaan ciise waa ilaah ciise waa ilaah ciise waa ilaah ayaa habeen iyo maalin loo dhigaya adiguna waxaa rabta inaad ka dhaadhicisid ciise ilaah maaha meesha lagu dagaalamayo lagu loolamayaana waa waddankii laga aaminsanaa ciise waa ilaah weeye maahan kii laga aaminsanaa alleh waa alaxadu samad maahan meeshii laga aaminsanaa u fiirsa marka haddaad cayaarta u geshid garoon kale oo dadka iskale ay ku maamulayaan goolka waa lagaa dhalinaya meesha lagu loolamayo ilmaha la iskugu haystaay maahan meel alle laga aaminsan yahay meel ciise laga aaminsan yahay wey soo ma jeed ka badbaadsa marka adaa dabinka iyo shabaqa u soo gala leh saa uga bixi lahayd ka shaqee waxaan aad olagu celcelinayaa odayaal badan iyo adeeryaal badan iyo waalidiin badan oo halkaan fadhiya ilmihiina weli ay maqan yihiin waa digniin naftiinna ubnaxa cidna ha u danaynina qabriga marka la idin dhigo wallaahi nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay maa min cabdin yastarciihi illaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahwa gaashun liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi aljanna qof dhimanayaa ma jiro marka uu dhimanayaa isagoo dayacay dadkii uu mas-uulka ka ahaa oo ilaahay uu raaciyey ilaa jannada waa laga xarima maxaad ka dheefaysaa marka inaa ilmahaagii janno la'aan ku noqotid maxaad ka dheefaysaa cadaabku ku cuno
halkaa marka inta lagu dhigo iilka ah oo dhagaxaanta iyo ciidda saa lagugu rogo dad iyo qaraabiya rixim ay kaa dareeraan xagga aysan qabrigu waasic u ahayn xaggana aadan isku gedin karin madaxana aadan la soo bixi karin halkaa lagugu hayo waa waraya hala ii gurmadana aynan suurtoobi karin halkaa lagu weydiiyo ku yidhaha hebel iyo hebel adigu waa dhashay meel ku sheeg ciisaa la bareed adigaa geeye ka warran lagu yidhahdo maxaa ilaahay hortiisa ugu jawaabaysaa damac adduunyaa kugu jira ilaahayna subxaanahu wa tacaala damaca kugu jira ilaahay ma kuu barakaynayo waxaad dayacaysaa waa wixii ugu qaalisanaa oo adduunyada maal aha oo la shaqaysan lahaa waa awlaad saalixiin ilahay inuu kaaga dhigo ayaad dayacaysaa walaalahood iyo qaraabadood iyo ahalkooda gaajada ha la qabeen baahida ha la qabeen soo celi wixii dhaqan celin u keeni jirta u keen mar baan waxaan booqday meelaha dhaqan celinta niman baa waxay yidhaahdeen annagu ma qabanna ilmaha aan qabanna ka mid ma ahan ilmo dibadda laga keena oo maxaad u qaban weydeen waxay yidhahdeen ilmaha dibadda laga keenay dhaqan celintooda waa dhib badan tahay luqaddii la fahmi mayno dhibaataa naga haysata cunnada ay cunaan ma hayno wax ay cunaan ma hayno ayaga dhan waxa weeyaan haddii inta la garaaco wax yar meel looga dhifto meesha dhan waa baranaysaa sidii waxa sun la cunsiiyo jirkooda dhan wada dildilaacayo weeye waxay iigu daroolaya waxay yidhaahdeen maantoodna haddii wax loo akrinahayoo la wado wax ay fahmahayaanoo badani ma ay jirto marka waxaan rabnaa ilmaha aan dhaqan celinta u samaynayno kuwa waddanka jooga markiiba si sahlan baa loo laylin karaa kuwa kale maya waxaadna arkaysaa ilmo waaweyn oo xooggooda iyo haybadooda iyo quruxdooda ay yaabaysid haddaad in yar waraysatidna bar caqliya aan lagu arag oo midka baadiyaha ariga ku raaca intuu la sheekaysto oo iska kaxaysan kara ayaga dhanbaba soo ma jeed waa la yaabaysaa xooggooda markaa aragtid isay u soconayaan sidii wax garbab qaba waa naxaysaa ilmahaas waalidku say u dayaceen baa la yaabaysaa oo ay waddanka ugu ilaalinayaan miyaysan arag ilmaha waddanka jooga siday u fakerayaan iyo caqligooda iyo xikmaddooda iyo adaygooda iyo siday qaraabada u kala yaqaanaan iyo abtirsiga miyaynan arag maxay ugu hayaan meesha ugu celinayaan war ka soo kaxeeya qaraabanimo iyo abtirsi iyo ahli idinka raaci mahayo diinna idinka raaci mahayo dadnimana ma ahan inaad waxa noocaasa aad nacfi adduunyo ka raadisaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha nooga soo aruuriyo allah ha inoo soo hanuuniyo oo ducaynaynaa waalidiinta u taagan mar walba inay soo kaxeeyaan ducadaan ugu kaalmaynaynaa ilahay ha u soo sakhir ilaahay ha u soo sahlo subxaana wa tacaala waxaad ku didaashaa marka taqwada sababka ugu weyne waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ku siiyo alfawzu biljanna wاlnajaatu min annaar inaad naar ka badbaadid jannana aan heshid taqwadu taas ayay ku gaarsiinaysaa taqwada haddii la dayaco oo la waayo wax alla waxa masaa'ib halkaas ka imaanaya ilaahay wuxuu leeyahay walaw anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard hadday dadka magaalooyinka degan oo ahlulquraaga ah waxa weeyaan ilaahay ka baqaan oo ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyaan oo ka cabsadaan waxaan u furaynaa barakaadka iyo khayraadka ayaan u furaynaa xagga samada iyo xagga dhulka kulli waa looga furaya dhulkii baa ilaahay u barakaynaya samadii baa ilaahay khayr ka siinahaya haddii ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa iyo taqwadiisa lala yimaado ilaahay hayna waafajiyo subxaana wa tacaala allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى